nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah sirdoonka Imaaraadka Carabta oo soo buux dhaafiyay magaalada Nairobi halkaas oo ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaq ka dhan ah arrimaha wardoonka sirdoonka Soomaaliya iyadoo markaasi ay doonayaan inay galaangal xoogan ay ku yeeshaan arrimaha Soomaaliya hadaba wararkii ugu dambeeyay sirdoonada Imaaraadka iyo Kenya oo buux dhaafiyay magaalada Nairobi iyo dhaqdhaqaaq halkaasi ka bilowday ayaan halkan idin soo gudbin doonaa xog iyo macluumaad dheeri oo aynu ka helnay sidoo kale daawadayaal waxaan idin la wadaagi doonaa ciidamada ammaanka Galmudug oo gacanta ku dhigay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay iyo ragii waday hadaba xogta gaarigan halka lala damacsanaa iyo waliba markaasi shakhsiyaad caan ah oo la sheegay inay ku lug leeyihiin in gaarigan uu soo galo gudaha magaalada ayaynu idin la wadaagi doonaa intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fisan aynu ku bilownay ila sirdoon oo xogogaal ayaa ku waramaya inuu sii xoogeysanayo dhaqdhaqaaqa xubnaha sirdoonka Imaaraadka ay ka wadaan gudaha Kenya halkaas oo ay soo buux dhaafiyeen waxaana uu sirdoonka Imaaraadka doonaya inuu galaangal xoogan uu ku yeesho arrimaha wardoonka Soomaaliya sirdoonkan shisheeye ee Nairobi isugu soo ururay ayaa wada qorshe ka dhan ah midnimada iyo deganaanta Soomaaliya Imaaraadka oo ka carooday tallaabo horay dalka Soomaaliya lagaga eriyay shirkadda DP World waxay hadda doonaysaa inay isku fidiso dhammaan dekedaha Soomaaliya maadaama doorashadii 15kii May lagaga guuleystay madaxweyne Farmaajo muddo 5 sano hortaagnaa in Imaaraadka faragelin toos ah ku sameeyo sharafka iyo karaamada Soomaaliya siyaasiga Faarax Macalin oo gudoomiye ku-xigeenka ahaa baarlamaanka Kenya sanadihii 2008 ilaa 2013 waxa uu si toos ah u sheegay inay sirdoonka Imaaraadka u adeegsadaan Kenya sidii loo carqaladeyn lahaa midnimada iyo deganaanshaha Soomaaliya sirdoonka Kenya iyo Imaaraadka ayaa ku heshiiyay inay wiiqaan wadajirka iyo midnimada Soomaaliya isla markaana si qoto dheer saameyn ugu yeeshaan arrimaha sirdoonka Soomaaliya si kastaba haatee tan iyo sanadkii 2018 dowladda Imaaraadka Carabta waxay faragelin joogto ah ku hayeen arrimaha gudaha Soomaaliya iyadoo saldhig military iyo dekada ka sameysay qayb ka mid ah Somaliland iyo Puntland taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo markii la magacaabay maalmo kadib safar qarsoodi ah ku aaday Kenya ayaa kulan gaar ah oo warbaahinta laga qariyay la yeeshay hoggaanka sirdoonka Kenya waxaana ay si hoos uga wada hadleen sidii wada shaqeyn buuxda u dhexmari lahayd sirdoonada labada dalana isdhaafsan lahaa xogaha sirdoonka labada dal sirdoonka Kenya iyo Imaaraadka ayaa walaac xoogan ka muujiyay ciidamada la soo tababaray qaranka Soomaaliya waxaana ay labadan dawladood oo dana gaar ah kale Soomaaliya ay adeegsadaan dad calooshood u shaqeystayaal oo aan marnaba ku farxin Soomaaliya oo awoodeeda soo ceshata maalintii been abuurka lagu ballamay ciidamada gorgor iyo haramcad ayaa cabsi geliyay Kenya oo faragelin toos ay ku haysay arrimaha Soomaaliya waxaana taasi bedelkeeda isku dayday inay ka dhex dusto shakhsiyaadka Soomaaliya si loo joojiyo xoojinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo tababarada kala duwan la siinayo dowladda Turkiga ayaa marar dhowr ah Imaaraadka iyo Kenya ay kala hadleen inay joojiso tababarada caalamiga ay siinaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isla markaana aysan nagu qubadeyn Soomaaliya sida ay markaasi sirdoonada Imaaraadka iyo Kenya ay ku sheegeen markaasi xogo sirdoon oo lagu daabacay majaladaha qaarkood wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda Turkiga arintaas ay ka biyadiiday isla markaana ay sheegtay inay diyaar u tahay sidii ay tababar caalami ay u sii lahayd ciidamada Soomaaliya si ay ugu filnaadaan difaaca dalkooda dowladii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ciidamo markaasi si aad ah u tababaran waxay geysay xadka Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan magaalada Beled Xaawe halkaas oo si weyn loogu dhibaateyn jiray dadka Soomaaliyeed ee xadkaasi degan ciidamadan gorgor iyo haramcad ee la geeyay xadka ayaa qalqalgeliyay ciidamada Kenya ee ku sugan halkaasi waxaana ay sheegeen in mararka qaarkood shacabka ay ku dhibaateyn jireen xadkaasi hadda iyagu ciidamada ay ka cabsadaan ciidamada dowladda federaalka ee halkaasi geysay isla markaana si weyn u hubeysan sida wararka qaarkood ay sheegayaan dowladda federaalka ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo hogaaminaya ayaa ku guuleysatay inay dhisto ciidan xoogan oo dalkani cadowga gudaha iyo dibaddaba ka difaaci kara waxaana sidoo kale horumar weyn laga gaaray ama laga dareemayaa hay'adda NISA kadib markii hay'adaasi uu majaraha u qabtay taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo marar qaarkood lagu yeeri jiray markiilaha dowladda
meelaha qaar Fahad waxa uu soo qaatay tusaalooyin uu ku muujinayo horumarka laga sameeyay Niisa waxaana ka mid ah in la ogaaday in meesha laga saaray faragelintii dalalka ajnabiga ay ku hayeen hay'adaasi. haddaba dabeecadaha gaarka ee Fahad Yaasiin uu markaasi lahaa ee aan markaasi dadka badi aysan ogeyn ee horumarka u horseedayna waxaa ka mid ahaa Fahad Yaasiin waa nin isqariya oo aan lagu arkin fagaarayaasha isla markaana aan ka soo muuqan warbaahinta wixii ka dambeeyay doorashadii madaxweyne Farmaajo ee 2012 ma jira sawiro iyo muuqaalo badan oo laga qaaday muddadaasi taas oo astaan u ah inuusan markaasi doonayn in laga helo macluumaad la xiriira shaqdiyadiisa iyo shakhsiyadiisaba mana laha bog rasmi oo lagu yaqaano oo ka furan baraha bulshada. waxaa lagu sheegay inuu yahay nin aad loo ilaaliyo oo aan si sahlan lagu arki karin. intaa waxaa uu weheliyay inuu ka adag yahay go'aamadiisa siyaasadeed. dad la kulmay qaarkood ayaa sheegay oo ka gaabsaday in magacyadooda la xuso waxay ku sheegeen nin afgaaban oo hadal dhowrsoon misana aad uga fiirsada hadalka afkiisa ka soo baxaya. haddaba dadka arrimaha amniga u dhunduleela ayaa waxay sheegeen in Maha Salaad oo ah taliyaha nabad sugidda Soomaaliya uu hadda markaasi ka koobigareeyay habdhaqankii wanaagsanaa ee uu lahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee uu horseeday inuu ku guuleysto in markaasi uu qubadeeyo ama uu xoojiyo hay'adda Niisa oo markaasi iminkaba lagu tilmaamay inay hadda ugu horeyso dalalka markaasi saaxiibada ama geeska Afrika ku yaala ee xuduudaha la wadaaga. sirdoonka Soomaaliya ayaa laga qeyliyay waxaana ay markaasi tirokoob ay sameysay hay'adda sirdoonada caalamka ay ku sheegtay in Soomaaliya iminka meel wanaagsan ay ku jirto isla markaana lama jeeran karo kana horeyso wadamada dariska oo markaasi qarniyaal dawlado soo ahaan jiray ama haddaba soo ah. dhinaca kalena ciidamada booliiska gobolka Mudug ee maamulka Galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo rag la socday sida ilaamaha amnigu saxaafadda u sheegeen. Dhame Cali Xirsi Sahal taliyaha saldhigga booliiska gobolka Mudug dhanka dowlad goboleedka Galmudug waxa uu sheegay in howlgalkan ay ku soo qabteen ku dhawaad 50 miino oo lagu keediyay meel al-shabaab ugu tala gashay inay ka sii qaado si loogu aaso meelaha ay qorsheeyeen sidoo hadalka u dhigay. gaarigan qaraxa laga soo buuxiyay ayaa lagu soo qabtay deegaanka Dagaari oo qiyaasii 30 kiiloomitir dhinaca koonfureed uga beegan magaalada Gaalkacyo waxaana ciidamada ku raajoogeen rag kale oo la xiriirinayay inay ku lug leeyihiin qaraxani. taliyaha saldhigga dhexe Gaalkacyo ee Galmudug ayaa sheegay inay soo bandhigi doonaan gaariga qaraxa siday iyo halka uu ahaa bartilmaameedkiisu. waa gaarigii labaad oo qaraxa siday oo lagu qabto meelo ka tirsan gobolka Mudug. dhawaan ay ahayd markii degmada Goldogob ee gobolka Mudug ee Puntland lagu qabtay gaari markaasi laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaas oo la doonayay in lagu qarxiyo meelo ka mid ah dowlad goboleedka Galmudug. gobolka Mudug waxaa ka socda howlgalo ay markaasi kala sameynayaan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland halka mararka qaar ay wada jir u fuliyaan howlgalka ay sameeyaan koonfurta iyo waliba waqooyiga magaalada Gaalkacyo. howlgalada dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ay iska kaashanayaan ayaa meesha ka saaray maleeshiyadii hubeysnaa ee dilalka ka geysan jiray koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. guud ahaan daawadayaal warkaad kala socoteen channelka waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino waana mahadsantiin.